الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال iyo marwooyin dacalada adduunka meel kasta oo ka joogtaan daawadayaal soo dhawaada ciid wanaagsan magaalada Baydhabo qaraxyadii ka dhacay ilaa hadda waxaan ognahay in dad ay kooma ku jiraan wararkii ugu dambeeyay inta aan kala maqnayn in kasto dhuunta la iga haayo haddana ballan waxaan ku galnay ilaa aan ka geeriyoono ama ukriye aan noqono hawshan inaan wadayno inta ummadan inta dulman ay xoroobayaan ma qosli kara iga dhaaf dhuunta ay go'an ma qosli karaya iga daaya maanta haddii aan caafimaad qabi lahaa way ii fiicnaan lahayd laakiin maba qosli karayaba haddii afkii aan kala qaado waa afkii baa i damqanayaba subxaana saakaan la soo kacay marka adduunyada waa qosol miidhan adduunyadan aad aragteen markaad u fiirsato dunidan waa iska qosol miidhan xasan sabtara wuxuu ku heesay adduunyadu waxaa weeye harka labadii gelin waayo yiri waana mugdi lagu halaabaa marba dhan bay u guudhaa marka sidaasi daraaddeed walaalayaal Baydhabo markaan ka imaano murugadaasi Soomaalidu waxay tiraahdaa labadii xaaraan ku heshiisay xalaashay isku dagaashaa Talyaanigana wuxuu yiraahdaa non è nato con le sabiante hal booli ah nirig xalaala ma dhasho saad ogtihiin walaalayaal quluubuhum shataa quluubtooda kala jeeda kuwa xaqdarada ku heshiis Ilaahay saasuu yiri Xaliima Yarey laba habeen ka hor aan live soo galay waxaan idiin sheegnay Xaliima Yarey iyadoo waraaqu ay ka dhaceen waa gudoomiyaha guddiga doorashada dawladda federaalka Soomaaliyeed way Xaliima Yarey waxay u dhalatay Galmudug State waxaan idiin sheegnay habeen dhaweyd waraaqa inay ka dhaceen iyadoo farmaajo garabka farmaajo ay tahay waraaqii ay rabtay Maxamed Mursal inuu u cusboonaysiiyo maadaama 27ka bishan oo maalmo ka harsan yihiin baarlamanku ay tahay iyo golaha wasiirada inay xisaabtamaan doorashada sidii loo qaabayn lahaana la sheego Xaliimo bacdama waqtiga uu ka dhacay habeen hore inay guriga Mursal timaaday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed wiilkaasi Mayland u dhashay albaabka laga celiyay oo daaqadaha macni muraayadaha laga dalacday marba hadaad garabka farmaajo tahay wiya la yiri Baydhabo kii soo xasuuqay Baydhabo kii Galmudug xasuuqay kii Muqdisho jidadka googooyay markaasaadna leedahay ma arkaysa macni aan dhankiisa ahaye qaabka doorashadu rabaa loo dhigaya iska baxalay walaalayaal marka Xaliima Yarey isla markii SMC iyo jugta culus hadana aan idiin sheegnay oo guriga Maxamed Mursal laga celiyay abeena waxay abaartay farmaajo toos ugu tagtay niyow dhageysay tiri niyow dhageyso meeshaan kaliga ayaa ku soo haray saaxiib kaliga ayaa ku soo haray kaliga bas ku soo haray meel ahaysatida ma jiro qorshe midkaan aan ahayn oo ka duwan ma haysaa
farmaajow mingiste farmaajow ma haysaa markay sidaasi dhahaysay farmaajaha inuu fayow yahay dadka qaarkiiba way u malaynayeen war ninku waa handicap fudayd isla markii caybuu indhaha ka saaray dhilla yahay uraysa oo gocosada ku soo kortay dhillo urtay uu yidhi farmaajo markay sidaa uu yidhi iyadana maxay samaysee dhillay quulla quute uraaye waxba laysuma reebin dhilloy iyo dhillay iyo kaniis farmaajo iyo xaliimo yaray waa guddoomiyihii guddiga doorashada iyo madaxweynihii soomaaliya waxa federaalka loo dhiibay oo dhan macnihii kuwii ugu sarreeyey waa loo feesteeyey aan ku dhahay gabdho dhowcilo ah macnihii meel ay isku caynaayeen oo kale weligaa maaragta adiga waa loo feesteeyey farmaajo markii la yidhi ay tiri macnihii saaxiibow maxamed mursal waan u tegay guddoomiyihii baarlamanka farmaajo waxaan arkaa keligaa inaad bannaankaa fadhido cidlada ah dalkana macnihii meel buu u guurayaa warniyow qorsho kan ka duwan kani wuu fashilmay haa waana laga hor yimaaday qorsho kan ka gadisan ma haysaabay dhahday markay saa dhahaysay bilaa hubsiina la-aan dhillo urtoy waaxid haa qorshaha kaloo iga sugaysa maxay tahay waryaa sidaan kuu diray ma samaynaysaa intay yaabtay ma madaxweyniya mise isaga maahan ee isweydiisay ee u dhamaysay iyadana ilaan waa gabar reer galmuduga iyaduna ha waxay tiri khaniis hal xaniinya le baa tahay bay tiri uraaye khaniiska uraayow waa la isu tirsaday waa loo feystayey aniga afka markuu i xanuunayo markaas oo kalaan raystaa waaba ku caafimaadaaba haddaan nahay s m c iyo jugta culus waan ku caafimaadnaa madaxweynihii dhammaa madaxweyne maxaa qorshoo haysa yaa dhahay guddoomiyaha guddiga doorashada xaliimadii guddoomiyihii uu isaga dhistay madaxweyne qorshahan ma shaqaynaye maxaa arrin oo kalood haysaa sheekada way soo xumaanaysaa besay dhahday dhillo urtooy gocso ku soo kortay ha maxaa kuu geeyay adiga waryaa arrimahaas isla markii uu afka ka geliyey iyadana waxay tiri garbasaarta intay duubatay waxay tiri khaniis hal xaniinya la tahayo uraaya oo macnihii quulo quute uraaya shaarba weyne dilladii waa loo faystay waa la kala celceliyey maxamed cabdillaahi farmaajo iyo xaliimo yaraydii oo intaas ay isla safnaayeen oo doorashada ay rabeen inay gembiyaan madaxweyne mukhtaar roobow macnihii lasoo xiritaankiisi ka shiray oo guddoomiyaha ku-xigeenka guddiga doorashada sayid cali ninka la yidhahdo mayland u dhashay daacad ahaa macnihii farmaajo uu yidhi ay erisay dhillo iyo khaniis ay kusoo kala tageen dhillo iyo khaniis xaliimo yarayna waxaa la yidhi dhillo uraysaa tahay oo gocoso quudata ha gocosaa kusoo kortay goosaagu meeshaan ay leegihin oo aad la gandheer tahay uu yidhi farmaajo iyadana waxay tiri khaniis uraaya oo quullo quuto ah oo macnihi ur badan baa tahay ay tiri villa soomaaliyana 91dii aan kaa saarnay maba ahaynba inaan kusoo celino halahan inaan kugu hayno maba ahayn bay tiri uraaye quullo quutow hal xaniin leh waxba laysuma reeban waa laisu kiilkiilay xaliimo yaray iyo maxamed cabdillaahi farmaajo war aniga ma aha nin baa idhahay caafimaad ma jiraa war villa soomaaliya taga kalaabka meesha meel boqolsoon uu ka wacdinayo ama sheekh xuseen cali jabuuti ama sheekh mustafa xaaji uu ka wacdinayo maan horaan idinkugu sheegnay meeshaasi waa kalaab oo macnihii haykaley iyo ma arkaysa haykalka walba oo macnihii shaarbo weyn oo macnihii fariisto qamriga uu ku cabo shiishada uu ku dhuuqo oo macnihii aan laga cadimin waayo dad baa waxay u haystaan macallinka ma soo waasho war aniga ma dhihin aniga erayada igama imaanin nimayow annaga s m c iyo jugta culusaa nala dhahaa qofna ma dulminayno annaga laakiin farmaajo iyo xaliimo yaray wixii dhex maray guddoomiyaha guddiga doorashada iyo maxamed cabdillaahi farmaajo oo madaxweynimada sheeganaya wixii dhex maray baan idiin sheegaynaa bes
dhillo iyo qaniis bay kusoo kala tageen. dhillo iyo qaniis ani ma dhihine farmaajo dhillo uraysaa tahay uu yidhi Xaliimo Yarey. isagana iyadana waxay ku tiri khaniis xun oo uraayo oo quulo quutaa tahay. villa Soomaaliya inaad soo fariisatid xaq daray baa ahayd. wixii intaan nagu ka haayay aaba dulmi ah waaba sixranayn. Xaliimo Yareyna saasay dhacday. marka aniga wixii iyagu dhex maray ayaan idin sheegaynaa. anigu malihi khaniisa tahay, anigu malihi dhilay baa tahay, anigu malihi afkaygu maankaas. laakiin wixii dhex maraan kuu sheega aniga. ma waxa rabtaa inaan qariyo? maya, anigu suxufi baan ahay. haddaynu nahay warbaahin haddaynu nahay wixii jira inaan sheegno ilaahay baan ugu dhawaanaynaa. facebookana cibaadadan usoo galnaa ee comment iyo view midna uma soo galno. marka sidaasi daraaddeed Xaliimo Yarey 2 habeen ka hor maray ahayd baan live soo galnay anaga haddaanu nahay SMC iyo Jugta Culus. waxaan idiin sheegnay in Xaliimo Yarey oo waraaqu ay ka dhacsan yihiin farmaajo xilligii loogu talagalay doorashada inuu soo diyaariyo iyadoo socota Maxamed Mursal guriga ay ugu timaaday isla markaana albaabka ay ku garaacday. intay soo socotana Maxamed Mursal gudoomiyaha baarlamaanka telefoon loo soo diray oo la yiri Xaliimo kugu soo socota oo garabka farmaajo ah in warqada macnihi aad u jadiidisay doonaysa. isagana uusan u soo bixin secretary-ga uu soo diray uu ku yiri saaxiib iska noqo. isagoo go'aansaday Maxamed Mursal in uu guddi madax bannaan kan farmaajo uu dhisay ee Xaliimo Yarey uu dhisto maadaama markaan buur ku tiirsanow ama buur ahaw la yidhi oo farmaajo laga kala dhaqaaqay international community-ga beesha caalamku ay Maxamed Mursal oo gudoomiyaha baarlamaanka ah iyo ma arkaysa Cabdi Xaashi Barre oo aqalka sare haysta ay ku adkeeyeen doorashada saacadna inaan lagu dari karin in la qabtana ay tahay. waana natiijadii reer Maryland dacwadihii dunida oo dhan ay geeyeen xasuuqii Baydhabo iyo xarigii madaxweyne Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur la doonayo muruga iyo macluul meesha in laga turaaturay. marka isku soo wada duub 2 habeen ka hor meelaasaan idiin sheegnay. dad baa waxay soo qorayaan beenlow bay soo qorayaan. beenlow hadday tahay Xaliimo Yarey hadda xaggay degan tahay. 2 habeen ka hor farmaajay la deganayd meesha uu degan yahay bay wax ka deganayd ee ka dhaweyd. hadda intay u soo guurtay Maxamed Mursal iyo Cabdi Xaashi oo macnihi isku dhinac noqday yiri doorashada saacadna lagu madaraayo go'aankaasi gaaray ayay ku dhinac noqotay. Xaliimo Yarey marka way fakartay. waxay qaadatay ninkii farmaajo ahaa maadaama cidlo uu soo dhacay haddii ay weydiisay macnihi tala soo jeedin madaxweyne markay Maxamed Mursal ka soo noqotay gurigiisa madaxweyne waxba ma jiraane kaligaa baa taagan tahay qorshaan aan dejinay ma shaqaynaye na lagu fahmaye madaxweyne macnihi jidkeen marnaa markay tiri eragaas uu ka xanaaqay uu yiri dhilayahay xunta ah ee uraysa aniga oo guddiga ka dhigay gudoomiyaha guddiga doorashada aan ka dhigay ma ileedahay macnihi kaligaa ayaa tahay waa la fashilmay xageen u guurnaa. madaxweynihii dhama dhahay dhilla tahay dhilayahay uraysa go'osa ku soo kortay sharmuuta dhahaya bal adiga ka sheekee fudaydka intaas leeg. iyadana kamaba gaabsanin oo waxay tiri qaniis hal xaniin yale ayaa tahay tiri hal xaniinaan leedahay urayaa tahay quulo quute ur badan shaarba badan wixii ma arkaysa 91dii markaan idin saarnay kadib macnihi anagu nagu ka haayay inaan villa Soomaaliya oo Cabdiqaasin aan u diidnay calimaadii aan u diidnay meeshan macnihi aan kugu hayno taasa qalada. marka isku soo wada duub aydaasi markay dhacday kadib Xaliimo way fakartay. marka waxay aragtay farmaajo inuu cidla taagaya aayad u islahay inaysan jirin. Abdicasiis lafta gareen hadda wax amar loogu yeeray daanu dheeraaya farmaajo 80kii reer Maryland sidii macnihi gacanta ugu dhigla tala kale u hayo male taasna hadda ma shaqaynayso. soo ma jeedid Maxamed Cabdullaahi farmaajo markay aragtay marka afxumadiisii kaligiis inuu taagan yahay day gabadhii heystay waxay tiri durujaal gaboobiyo aniguna dantaydii. haddii rujaal ama nin gaboobay oo daasadle uu noqday uu qufacayo uusan wax qaban karin anigana dantaydii maxaa dhigay aniga. soo ma jeedid marka Xaliimo Yarey haddii Maxamed Cabdullaahi farmaajo macnihi cidla uu soo istaagay waxba uusan isla haynin aniga maxaa ag dhigayay tiri oo aniga idhahaya
sharmuuto waxaa tahay dhilla oo urayso oo reer galmuduga oo macnihii gandheer markaan tala bixin aan weydiiyey leesh macnihii maxaan u ag joogaya heestii bay daliilsatay durujaal gaboobiyo aniguna dantaydii madaxweyne xishoonayo ma jira meesha ninkaas horaan idinkugu sheegnay habeen kasta waxaan idiin sheegnay in cirbad waagii hor kaniiniyu qaadan jira habeen kasta laakiin markii dambe cirbad booyad la eg oo macnihii faleeba ah in lagu siro dabadiisii maqrib kasta uu kambaruursado macnihii bambaraanaha guduudan juqdii lagu sii dhiigga markuu fay ka soo yidhaahdo macnihii dhahay aan idiin sheegi jirnay idinku been aad u haysateen soomaalidu macnihii waxa weeye sida eelaay dadba eelaay maxay ogtahay say u lahaayeen buura kaba koobka way qaaday eelaay wax ma og say u lahaayeen united nationkii bay diiwaan geeyeen eelaay wax ma og say u lahaayeen sheekh shaakir iyo xanaan iyo manaan ay soo afjareen xere inji ay ku khudbadayeen afmay eelaay wax ma og say u lahaayeen ya sirii bay soo sheegay eelaay wax ma og say u lahaayeen macnihii ilaa iyo raamakulow bay bursanay eelaay wax ma og say u lahaayeen hadda intaan ka badan maxaan idiin sheegnaa maxaan idiin sheegnaa hadde annagu aakhira kama soo warami karno in ka badan inta diinta ku qoran ee nebi maxamed lagu soo dejiyey culimmadana ay noo soo gudbisay intaan cilmo dhagood jaahilnimadeena aan ka maqalnay wax ka badan ma ogin marka waxaan ula jeedaa xaliimo yaray waxay tiri war ninkaa adiga macnihii dhilla ku dhahaya islaantaa ganta dheer ku dhahaya gocosaa quudatay ku dhahaya oo madaxweynihii dhammaa afxumadiisii meeshan ay gaadhay hadduuba cidla taagan yahay maxaa ku dhigay tiri adiga maxaa kuu dana durujaal gaboobi aniguna dantaydii ka dhigi laakiin annagu waxaanu leenahay marka maxamed cabdillaahi farmaajo saldheer waxaanu leenahay iyo tiimkooda waxaanu leenahay heestii cigaal uu qaadi jiray maxay ahayd dayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaale weli digashadaadiyo sow dhaafka caashaqa dib u soo xasuustee hay ugu daaline samirey heestayda waa tahay caawa haddaynu nahay eelaay kibray haddaynu nahay mayland haddaynu nahay qowmiyadda ballaaran reer xamar mayland jareerweyne somaliland iyo inta dulman oo dhan iyo xataa salballaarta dulman salballaar dulmanaa jirta waxaanu leenahay dayra ruuxi farmaajow dhegayso mingiste madaxweynaha caabuduwa qabaaladaystow dhegaysto ha dayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaale weli digashadaadiyo sow dhaafka caashaqa dib u soo xasuustee hay ugu daaline samire abu cali oo waxba aan ogayn oo dadkiisii qarxinaya heestan hadda aan qaaday bilaa muusiga wuxuu dhahayaa murtad gabdhihiisana waa la kufsanaya isku soo wada dub walaalayaal beenlow kuwa soo qoraaya oo farmaajo taageersan baan u sheegaya dhiqlaha dhuudhiga dhargalka wasaqda waxaan u sheegaya gudaafadda waxaan idiin sheegaynaa xaliimo yaray laba habeen ka hor farmaajo ayay hoosta kaga jirtay maxamed mursal sheikh wiilka mayland intaysan u imaan ka hor waxaan idiin sheegay mursal maantay la ima heli karo walaalay la ima heli karo ayuu taagaya la ima heli karo walaalay la ima heli karo walaalay la ima heli karo anigu qaaliyaanahay mursal sidaasuu taagaya ha mayga maanta waa qaali waa dahab weeye ha 80 cod iyo doorashada soomaaliya oo dhan hadday ka faa'iidaystaan waxaan ula jeedaa waxaan idiin sheegay maxamed mursal in jilbihiisii macnihii farmaajo inuu jilbaha maxamed mursal uu ku oynayaan idiin sheegay habeen hore laba habeen ka hor waay beenlow maxaa la yidhi nin maqan iyo nin mootan uu markhaati ka dhigaa xaliimo yaray markay yaabtay ee aragtay xaqiiqada farmaajo keliya inuu taagaya qayra gooniyuu meel ugu xidhaya qayra iyo farmaajo isma salaamayaan seedinimo iyo gabaraan iska qabnaa iyo waxaasi macnihii waxay ahaayeen arbaca qumbaaleydii iyo khamiis kalahaadkiya lagu kala tegay waxaasi waa sheeko iska nacnac iska raqiisayay war salaamu calaykum waa salaanta islaamka how are you how do you do iyo bunjuuq iyo bunsuwaaq iyo bunjoorna iyo bunamatina midna isma dhahaan iyo guten tag toona isma dhahaan af gaalay af muslim iskama salaamaan
waa la is ag maraya gafuur tuur sidii dhowcilo la isla qabo oo hadda macnihii la isla soo aroosay oo kale saa awgeed qayre gooni u xiraya farmaajo gooni u xiraya maxamed mursal ku saaray maxamed mursal iyo cabdi xaashi gudoomiyaasha isbaaysta marka iyagoo turkiya fiiladii dheereed soo xidhay international community corona intuu jirayba shirar ku jiray oo caalamkii deeq bixiyaasha Soomaaliya ciidamada dadka maalgeliya dhammaan ballanqaadyo iyo waraaqo ka soo qaaday oo la yiri doorashada hadday dhici weydo iska jira idinka ka mas'uula farmaajana kala ma xisaabtamayno waa madaxweynahana waa inuu tartamaa waa in lala tartamaa isagu doorasho shaqo kuma leh waa one individual waa sharci ilaaliye ma aha sharci dajiye adinka ayaa macnii wadciga ku fadhiya sharciyan dajinay idinka yiri ki ilaahay ka sokow Soomaan waxa la idinkaga fadhiyaa baa la yiri cabdi xaashi labada aqal idinka la idinka rabaa inaad doorashada xaqiijisaan no other way 8 February marka la gaaro annaga jid iyo jihaan idinka rabnaa ka hor adduunyada tiri annaga ma dhihin SMC ma dhihin jugta culus ma dhihin eelayda ma dhihin Mayland ma dhihin Somaliland ma dhihin mana dhihin ma arkaysa saldheer iyo salbalaar iyo jareerweyn iyo reer xamartoona ma dhihin laakiin dunidii waxaan dhisatay oo macnii Nairobi ku soo dhisatay xamar keensatay ayaga dhahay oo taangiyada meesha ku ilaalsanaya saadaraade maxamed marka xaliima yaray markay chekintay maxamed cabdullaahi farmaajo markay guriga mursal ay ka soo noqotay farmaajo ay tale celin ku celisay ay ku tiri maxamed cabdullaahi madaxweynow hadda ma arkaysa waraaqii waa soo cusboonaysiin waayay maxamed mursal wuu iga diiday gudoomiyada baarlamaanka awoodana isagay hadda gacantiisa ku jirtaa talyaanigu wuxuu dhahaa toko ate gabar walbana maalinteeda madfaca loo tuuraa baasha way naga jajaban tahay sida aa wax u dhisnay filinkii uu qarxay fashiluu baa la taagan yahay madaxweyne maxaa tala ah jidkeen aadnaa sideen macnihii yeelnaa markay dhahday waa tii uu ugu jawaabay uu yidhi dhilla xun oo uraysaa tahay aniga sideen yeelnaay dhiib macnihii dhilla gocosa kusoo kortay oo gandheeraa tahay uu yidhi madaxweynihii dhammaa wallahi habeen hore waa la yaabay villa Soomaaliya tan ka dhacday habeen hore maxamed cabdullaahi farmaajo midda habeen hore macnii cayda uu caayay xaliima yaray waa yaabaysaan ay toosa iyadana way u dhamaysaa waxay tiri qaniis hal xaniin leh ayaa tahay ay tiri quulla ku soo koray oo reer caabud waaqa ay baana tahay uraaya shiiraaye waa la kala guuray xaliima yaray way fakartay marka farmaajo waxay aragtay shacab taageero inuusan ka haysanin waxay aragtay maamul goboleed wax la yiraahdo taageero inuusan ka haysanin adduunyadiina taageero inuusan ka haysanin marka banaankaasi uu taagan yahay hadday tala ku soo celisayna dhilla xun oo uraysaa tahay qabxad ah uu ku leeyahay oo ku soo kortay gocoso gandheer waxay go'aan ku gaadhay inay ku biirto marka gudoomiye maxamed mursal shiikh iyo inay ku biirto gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi barre oo seeftoodu galka ay ka siiban tahay doorashada maalina inaan lagu darin oo adduunyada fiilooyinka la soo xidhay doorashada inay dhacdana xaliima yaray inay dhacaysana markaan u muuqatay oo ka awood badan macnihii farmaajo iyo tiimkiisa way soo guurtay maxamed mursal maadaama iyo aqalka sare ay dhisi rabaan guddi cusub xaliima yaray marka boorsooyinkeeday soo xirxiratay محمد مرسل آويت إيجي شلي هداي إيه فرماجة إيجي هذا حيتاجن وين حيتر مرسل إيجي هدي حاش إيجي مرسل كي إيجي ولين جمان مانت مرسل حاج إيجي يلا الباب كسوقش مركي سوق شيء ay soo noqotay albaabka inta laga furin maxaad ahayd leeyahay telefoon wala soo mariyay qofta waxa la yiri haye qofta way soo kala guureen iyadii farmaajo albaabkay soo istaagtay ma arkayse macnihi qaxootinimo isu dhiibtay maxamed mursal iyo cabdi xaashi barre labada gudoomiye ayay hoosta kaga jirtaa hadda farmaajo iyadoo kala guure dhilla iyo qaniis ay ku soo kala tageen dhillo iyo qaniis warka ma ku sheegay anigana afkayga xoogaa u wareystay gadaal baa ka xanuunay hadhowdii maxay marka ugu soo biirtay inta farmaajo inuusan waxba isla haynin habaa'an manfuuran inuu yahay oo balcan baacuuri
hawshiisu ay noqotay hal bacaad lagu lisay waxba kama jiraan ayay aragtay mar hadday sidaasi tahay hadday caqli bay leedahay ilaan guddoomiyihii guddigii doorashada soomaaliya waay 27 waxaa laga sugayay proposalkii guddi cusub maadaama la dhisaayo ay aragtay annagana SMC iyo jugta culus inta aan ka sheegnay xaliimo yare inuu waqtiga ka dhacay farmaajo inuusan wax isla haynin guriga maxamed mursal in laga soo celiyo de ma ogtahay adiga haddaad innacab tahay xataa ama qofka hadduu ku necab yahay xataa adoo runta sheegaya runtii qasab waay uu fiirsanaya ha ku necbaado ha ku cusuriyeeyo macnihi the truth qofka marka runta uu sheego run waa run beenna waa been hal lugay leedahay run macnihi runka qofka gaal baa noqdo qofka hadduu run sheegaayo run waay waa ka dhagaysanaysaa ilaan markhaati ay leedahay annaga marka macnihi waxay doonaan ha ahaadaan iyagu laakiin annagu runtii aan sheegayna wixii aan taaganay mo qofka siduu yahay iyo meeshuu albaabka istaagay iyo gurigii laga soo celiyey iyo waraaqihii inay ka dhaceen isagoo wata in loo diiday in marka loo sheego marka dambe sidaan u sheegnay ummadda oo dhan macnihi haddaan gaarsiinayno inaan wax ognahay wuu dareemaya ama ha ku jeclaado ama ha ku necbaado marka sidaa daraaddeed xaliimo yare waxay istiri jaanisuisa kaa dhumin marka tikidkan macnihii wuu dhammaaday oo macnihii farmaajo sidaasi daraaddeed guddi cusub baa la dhisayaa meeshaan ha ku ceeboobin macni waa inaad tikidkaaga u cusboonaysiisaa jihada dabaysha ay u soconayso xaggee weeye maxamed mursal iyo cabdi xaashi ay dabayshooda hadda shaqaynaysaa warka ma kuu sheegay aniga mise kuuma sheegin waxaana la dhahaa marka tiimka jugta culus iyo SMC ogaada annagu xaliimo yare ma caynin annaga farmaajo ma caynin laakiin waxay isdhaheen markay isku dhacaayeen waxay isdhaheen aan sheegnay ma sheegi karnaa noo codeeya wixii farmaajo iyo xaliimo yare ay isdhaheen inaan sheegno ma dembi bay nagu tahay walaalayaal dembi miya annaga luuqadeenna maan dhillo annaga luuqadeenna maan macnihi khaniis laakiin madaxweynihii soomaaliya ayaa guddoomisada guddiga doorashada ku yidhi dhilla xun oo uraysaa tahay oo macnihii gocoso ku soo kortay oo gandheer isagaa yidhi markay talo weydiisay maxaan samaynaa markay dhahday iyadana waxay ku jawaabtay oo tiri khaniis hal xaniin leh ayaa tahay ay tiri uraayo oo quulo ku soo koray oo reer caabudu waaqa khaladaana kuugu haynay muddo 3 sano iyo jarjar villa soomaaliya saasay tiri dhillo iyo qaniis aa loogu feesteeyey ay kusoo kala tageen aan idin dhahnay waana siday tahay waa waxba kuma darayn annaga marka madaxweyne dhan oo macnihii dhahaya dhilla xunaa tahay uraysa tala leeba la weydiiyey anigu waan idiin sheegay ninkaan inuusan fayoobay ninkaan in macnihii mambaraanaha laga duro ninkaan in macnihi autism uu qabo ninkaan inuu nin jiran yahay ninkaan fudayd waad ogtihiin hadda ka hor baabuurkii qarax qofkii sheegay kulaa 100 kun aan siinaa fudayd fiiri macnihi hadal aan miisaanayn inuu leeyahay ninkaan inuu jiran yahay madaxweyne mukhtaar roobow 6 jeer ay kulmeen hadda ka hor 6 jeer markay wada fadhiyaan madaxweyne yaabay wuu dhagaystay madaxweynihii hadli maagay anigu go-aankaygu waa sidaas wallahi sax waay sheekhow saas waay sheekhow sax wallahi madaxweyne mukhtaar roobo intuu fiirshay uu yidhi kan dalka dagaal uu gelin doono hadduu soo noqday haddaan hadda laga qaban ninkaan ma fayow buu yidhi ninkaan nin fayow maaha soomaali nin walaalan bay dooratuu yidhi nin fayow maba ahan buu yidhi fadhigiyaa la fadhiyaa farmaajo hadalaa la yidhi wuu hadlay sheekh mukhtaar isaga waay xabsiguu ku jiraa sheekh mukhtaar madaxweynihii hadlay madaxweynihii markuu hadli maago madaxweyne mukhtaar roobo aaduu ku dhagaysana waad ogtahay nin degan waay madaxweynihii markuu hadalka qabsaday oo hadli maayo go-aanka annaga haddaan nahay mayland saas kama degayno hadalka intuusan dhamaynin sax waay sax maxaa saxa ma fahmine sax waayuuna leeyahay marka madaxweyne mukhtaar roobo intuu fiiriyuu yidhi kan haddii uu soo noqdo hadduu soo laabto sidii adeerkii afweyne oo kale dalkan dagaal buu gelin doonaa buu yidhi dagaal sokeeye 91dii kusoo celin doonaa marka ninkan waa in soomaalidu macnihii ay iska qabataa hortiisuuna ka yidhi adigu haddaad soo noqotid waddadii adeerka afweynaad ku bixi doontaa dalkana dagaalaa gelin doontaa buu yidhi farmaajo ishaadaan ujeedaa qaabkaa u socotid mukhtaar roobo waa nin geesiya oo mayland u dhashay oo aan gamban waatan farmaajo uu yidhi iyo saadaq john iyo ay dhaheen macnihii weligeen
eelaay ka macangegsan abadal aabidiin ma aynan arag mukhtaar robow eelaay ka macangegsan nolosheena ma arkin ka go-aan adag ka adag isagoo qori aan haysan guri ku jira oo macnihii aan hubkeena wadana aan u imaanay ayaa wuxuu isha naga saaraya war anikan waa ka baqayaa yiri hadduu banaanka baxo inaan noolaanayo xataa u malayn maayo 6 jeerba marka isku soo wada duub walaalayaal annaga xaliimo yaray ma caynin SMC iyo joogta culus subxaana farmaajona ma caynin laakiin madaxweynihii dhammaa ee soomaaliyay madaxweyne aad u tiqiineen ayaa wuxuu la soo istaagay xaliimo yaray markay ka soo noqotay gurigii mursal maxaa tala ah madaxweyne waqtigii wuu dhacay wax aan haynana male cidlaan joognaa waana la fahmay maxaan samaynaa wuxuu ku bilaabay uu yidhi seed i dhihi kartaa sidaa daraaddeed dhilla xunoo uraysaa tahay uu yidhi oo qabxada ah oo gocoso ku soo kortay oo gandheer adiga naag intaasu bilowdo nin raga iyadana waxay tiri khaniis baa tahay tiri oo hal xaniin leh uraayo oo quulla ku soo koray reer caabud waaqa edeb darana kugu hayna meeshaan bila Soomaaliya khaniis iyadoo isagoo leh madaxweyniyoo leh xaliimo yaray ku leh dhillo khaniis iyaduna ay u jawaabayso dhillo khaniis dhillo ay boorsooyinku soo kala qaateen say u soo socotayna waxay soo degtay maxamed mursal ii geeya cabdi xaashi barre ii geeya maxamed mursal ii geeya cabdi xaashi barre ii geeya maxamed mursal ii geeya cabdi xaashi barre ii geeya sidaasay ku soo degtay kuwa hadda waxay soo qorayaan oo jacayl qabiileed ku jiro waxay soo qorayaan beenlowga ay leeyihiin inay dembi ku tahay ma oga malaa'ig garboodu inay saaran tahay ma oga caawa inay nafta ka baxaysa ma oga beenlow macnii qaaqlayaasha muruge iyo macluul waxaa loo sheegay facebooka wax laga difaacaa sida wax loo qaraacta ma yaqaanaan beenlow waxaa loo qoraa ba laba na loo qoraa kadibna waxaa lagu daraa la iyo macnihii laba o iyo wa waxay soo qorayaan mararka qaar binlow ma taqaanaa ba na la o wa ay soo qorayaan waxaynu ku leeyihin eelaay af soomaali ma taqaanana way ku leeyihin bal adiga ka sheekee macnihii waa kuwii lasoo jaajgareeyo waay binlow ay soo qoraan mararka qaar benlow ay soo qoraan benlow ba na la o wa ay soo qoraan qoraalkii xataa ma yaqaanaan waa geeljirayaashii caabud waaqi dhulkaasi laga soo ururshay oo macnihii meelaha inta la geeyey macnihii guryaha la yidhi dhayla ka cuna markaas kadibna mobile loo gaday weyn la tusay .com keliya la tusay maanta combyuter haddaa u geysid adduunka combyuterka .com keliya maan howlo badan oo qabtaa combyuter haddaa u geysid facebook.com www warbaahinta qaranka .com besaa laga baray wax kale uu ku qabanayo combyuterkaasi ama haba yaraatee ma jiro combyuterkaasi yarka ah adduunka oo dhan aan looga shaqaysta program kasta aa looga shaqaysta .com www.com ayaa la baray bes bartaasay fadhiyaan beenlowda aad leedahay war runa been haddaad tirahdid elunaar baa noqonaysaa waxaa weeye dembi weeye hadal runa haddaad beenisid dembi waa hadal been haddaad rumaysidna waa dembi adu marka macnihi hadalkii farmaajaa rumaynaysaa gar iyo gardaro been isagoo ah hadalka xaqa ana waa beeninaysaa marka beenlow aad la fadhidaa beenlow waxaad kale og tahay male .com aad tahay marka www.com intaasaa taqaanaa bes combyuter dhan lasoo gaday oo $1 lasoo siiyaa loo dhiiba ama loo www warbaahinta qaranka .com www caabudwaq.com bes intaasay yaqaanaan no other option aqoon kale ma jirto caqli kale ma jiro wax kaloo jirma eelaay iidoor jareerweyne jareer reer xamar carab waxaasuu qori yaqaanaa iyo tumaal iyo madhibaan iyo gabooyi no other wax kale uu og yahay male soo ma jeedid marka isku soo wada duub cabdi xaashi iyo maxamed mursal beenlow kuwa dhahayow xaliimo yaray oo guddoomiyaha guddiga doorashada ahayd ma farmaajay ag joogta hadda aan idinla hadlaayo mar kale ay geynin just now hadda annagu itusoo itaabsiyaan ku kala baxnaa
hadda ma farmaajay la safan tahay mise waxay u soo guurtay oo hadda laga helayaa cabdi xaashi iyo maxamed mursal meesha ay degan yihiin ayay soo agdegtay noo sheega dee noo sheega dee maxaa loo warwareegaya beenlow meel ma imaanayso war xaliimo yaray oo habeen hore ka hor la safnayd farmaajo waxaan idiin sheegaynaa dee beeyiin hadda xaggay ku sugan tahay way soo guurtay waa macnihii qaniis iyo dhillay iyo dhillo ayaa lagu soo kala tegay annaga marka wixii jiraan sheegaynaa sidaan jecelnahay keliya idinma sheegno sidaan necebnahayna ma qarino sidaan necebnahay iyo sidaan jecelnahayba sharciga saxaafadda ayaa nagu amraaya sidaan anigu jecelahay iyo sidaan anigu necebahay inaan ka guuro sida warka uu yahay inaan sheego adiga sidaa adigu aad jeceshahay keliya kuuma sheega aniga sidaa adigu aan necebtahay kuuma sheega warka maalina wuu kaa farxiyaa maalina macnihii wuu kaa nixiyaa marba waana tii heestii uu yidhi jacayl waa maxay baa la yidhi fanaankii abwaanka ah markaasaa wuxuu yidhi waa macaan ama waa qaraar hadba waa siduu kuusoo maro u yidhi amba waa qaraar amba waa macaan hadba waa siduu kuugu soo mare waa magaaca culus marka warka anagu sidaan u jecelnahay s m c iyo jugta culus haddaynu nahay reer mayland uma sheegayno sidaan u necebnahayno ma qarinayno waxaan u sheegaynaa sida uu yahay ama ha ku galo oo ku farax ama macnihi ha ku wara rudeeyo shuban ha kaa keeno sida farmaajo oo kale marka sidaasi daraaddeed taasaa dhacday afkaa la iga haayay waxa aan u soo galayna waxaa weeye in ma arkayse macnihii aan idiin sii daayo intaasi xaliimo yarayna maxaa ii jaanisay tiri durujaal gaboobiyo aniguna dantaydii ay tiri hadduu rujaal gaboobi haddii farmaajo naxalad ay ku dhacday oo gooniyoobay keligii uu noqday furuq uu ku dhacay waraabahu uu ugu darsamay oo ummaddii ka kala guudhay haddana aflagaaday afxumo uu la taagan yahay aniga maxaa ii danay tiri guddiga cusub ee mursal uu dhisaayo iyo cabdi xaashi bare ay dhisaayaan oo dunida macnihii la safan anigu kaasaan ku biiraya aniga waa kuu sheegay waa idiin sheegna annaga aniga waa kuu sheegay qalad waa idiin sheegnay tiimanna cafwan marka walaalayaal macnihii maqribkaana soo dhow doorashadii xaalkeeda meeshay noqotay mursal iyo farmaajo isma hayaan way kala guureen khayre iyo farmaajo 100 mayl bay kala guureen sidoo kale xaliimo yaray iyo farmaajo isugu dambaysay khaniis baa tahay iyo dhillaa tahay bay ku kala guureen haddana waxay degan tahay maxamed mursal agtiisi iyo cabdi xaashi bare agtiisay degan tahay mayga rajo ma leeyahay ha mayga madaxweyne uu noqon karaa hadduu guddoomiye baarlamaan ka joogsado haddii macnihi aan la soo awrkacsan ama ra-iisul wasaare uu noqonaya annagaa idin dhahnay haddii la waayo mid caseeya haddii u ogolaado in la saaro haddii awood qaybsigii bay ku harayaan annagu sheegis baan leenahay walaalayaal waxaan idiin sii daynaynaa ugu dambayntii haddaynu nahay jugta culus s m c maxaa yeelay xaqiiqdaan idiin sheegaynaa hees baana lagu soo ergaday oo doctor cabdiqaadir jaylani oo mayland u dhashay macnihii maskaxdiisu kasoo tuujiyey cabdullaahi yarowna laxanka uu saaray u dhashay mayland maxamed xaajina muusiga uu ku laray heestana waxaa la yidhaha s m c iyo jugta culus waxaana ku luuqaynaya kooxda qarnigan ee reer mayland Dilo,
وتاجني صوت بي حقيقي انت اس ام سي جبت علوس انت اس ام سي يو جبت علوس تعديدا لك السنة يوكو حكاستا وتاجني صوت بي حقيقي انت اس ام سي جبت علوس انت اس ام سي يو جبت علوس انت اس ام سي يو جبت علوس واربعين وتاجن سحتا طريقها قلدميو توسنتا سياسة ميلان SMC يو جبت علوس واربعين وتاجن سحتا طريقها قلدميو توسنتا سياسة ميلان تضبيضا SMC تعرض يا سي أبيك تعرض سمع آدم إنجليز محمد وطني صفتي رفاعي عبد نور تلقى جبت علوس وا نبي يا عبدي رحمة تفق لي أحمد علي عبد الله عليه تلمون حليمة جيلاني إمامك سحر الميلان تسيقود يا هاي ترسيها قنتيو تلك دقال ميلان إمامك سحر الميلان تسيقود يا هاي ترسيها قنتيو تلك دقال ميلان تغيردا سينيانا كو مركزتا وتاغني تاكولي دكودا تيمكا اس ام سي يو جوكتا علوس تلك SMC يو جبت علوس تغيردا سينيانا كو مركزتا وتاغني تاكولي دكودا تيمكا اس ام سي يو جوكتا علوس تلك SMC يو جبت علوس تلك SMC يو جبت علوس وصحفين قطامة تيتا استحداث لتيا تلدو مايلان فقنشان تلك SMC يو جبت علوس وصحفين قطامة تيتا استحداث لتيا تلدو مايلان فقنشان تلقى جبت علوس وا نبي يا عبدي رحمة تفق لي أحمد علي عبد الله عليه تلمون حليمة جيلاني تضبيضا SMC وا تعرض يا سي أبيك تعرض سمع آذن
ودني تفتي رماحي عبد نور تلقينا شفت عرس واه نبي عبدي رحمة تبقى لي أحمد علي عبد الله عرالي تولمون حليمة جيلاني تولمون حليمة جيلاني tolmoon xaliima jaylani STSMC iyo jugta culus ayay ahayd kooxda mayland ay qaadaysay miraha Dr. Cabduqaadir Jaylani music Maxamed Xaaji iyo laxankii Cabdullaahi Yarow oo u dhashay mayland sidaas daraadeed cid wanaagsan inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawaca boogooda Allah u dhayo update-kaas degdegan idin siinaynay ishaan ku hayna villa Soomaaliya biidnillaahi baari doorashadana way dhacaysaa biidnillaahi baari cid wanaagsan firdawsa